calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaat. Kusoo dhawaada janalka Dajiye. Maxaad ka taqaan jilayaasha ugu mushaarka badan adduunka? Muuqaalka maanta waxaan ugu hadli doonaa majalada The Forbes oo wax ka qorta arrimaha ganacsiga iyo maalqabeennada caalamka ayaa sanadkan 2020 wax ka qorta jilayaasha caalamka ee ugu mushaarka badan. Majaladan oo xog baaris ku sameysay maalqabeennada caalamka iyo hantidooda ayaa sanadkan soo bandhigtay aktarada sameeya aflaanta iyo mushaarka ay sanad walba qaataan. Waxaa halka idinku soo gudbinaya qaar ka mid ah 10 aktar ee ugu mushaarka badan dunida. The Rock oo ah jilaa sameeya aflaanta dagaalka haystana dhalashada dalalka Mareykanka iyo Canada ayaa sanadkan noqday jilaaga ugu mushaarka badan caalamka. Lacag gaaraysa 87.5 milyan oo doolarka Mareykanka ayaa la sheegay in sanadkii uu mushaar ahaan u qaato John, waxaana ugu dambeeyay lacag dhan 23 milyan oo doolar ayaa ay kala saxiixdeen shirkadda Netflix si uu aflaan ugu sameeyo. Dwayne Johnson ayaa raacay aabihiisa Rocky isagoo noqday feeryahan. Guulo waaweyn ayuu ka soo hoyay tartanka feerka ka hor inta uusan wacan dhanka jilitaanka. Wuxuu wax ka jilay filimada kale ah The Scorpion King, Fast iyo Furious 6 iyo Jumanji Francisco. Jilaa Reynolds oo ganacsada sameeya aflaanta una dhashay dalka Mareykanka ayaa sanadkiiba wuxuu mushaar ahaan u qaataa. Forbes ayaa ku soo warantay inuu qaato lacag gaaraysa 71.5 milyan oo doolarka Mareykanka. Lacag ka badan 20 milyan oo doolar ayuu ka sameeyay hal filim oo keliya. Aflaanta hadda uu soo wado waxaa ka mid ah Free Guy, The Croods, A New Age iyo Waardiyaha Xaaska The Handmaid's. Mark waa jilaa majaajilayste ah oo u dhashay Mareykanka sameeya aflaanta Hollywoodka. Hal filim uu sameeyay wuxuu Netflix ka noqday filimka saddexaad ee lagu daawasho badan yahay dunida. Malaayiin doolar ayuu ku sameeyay aflaan musalsal. Sanadkii waxaa la soo wariyay in mushaar ahaan uu qaato lacag dhan 58 milyan oo doolarka Mareykanka. Akshay Kumar ee wada garanayaan Soomaalida ayaa reer Hindiya wuxuu uu sanadkan ka noqday 10 aktar ee ugu mushaarka badan caalamka. Akshay oo ka mid ah jilayaasha ugu caansan Bollywoodka wuxuu jilay in ka badan 100 filim 30 sano ee la soo dhaafay. Wuxuuna sanadkii mushaar ahaan u qaataa lacag gaaraysa 48.5 milyan oo doolarka Mareykanka. Wuxuu noqday aktarka kaliya ee ka soo jeeda Hindiya ee ka mid noqda 10 jilaa ee ugu mushaarka badan dunida. Inta badan hantidiisa ayaa la sheegay in uu ku helo xayeysiin uu u sameeyo shirkadaha waaweyn ee caalamka. Hadda wuxuu ku howlan yahay filim lagu magacaabo Bell Bottom. Akshay ayaa lacagaha ka sameeya qandaraaska jilista filimada iyo ganacsiga gaar ah oo uu leeyahay kuwaas oo uu ka mid yahay website-ka bandhigida lagu shaaciyo oo lagu magacaabo The End.